kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba waa joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka inoo la gareeya cid walba muuqaalka la gareysa waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan u weydiinayna umuuraha leedahay ilaahay inuu u sahlo ilaahay uu xifdiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaadda uu barakeeyo inta awlaaddoonka aan ilaahay awlaad baari ha siiyo inta gurdoonka oo mustaqbal doonka aan ilaahay mustaqbal wanaagsan barwaaqo bashbash ilaahay ha geliyo cid walba muuqaalka leegta ku qabatana waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena in دقدقة فرج قرقب إلهي وغفره حاسد كوحا لنا ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحاكود دنبيري هوك يقصاره محاجة إلهي حاسد كما جعله ليكتا العقمة هيكو قبل ليكتا waxaa dhammaantiin idin leenahay ku soo dhawaada warbixin cajiib ah oo aan kaga hadli doono wiil dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Ankara gaar ahaan garoonka diyaaradaha xilli uu iska dhigayay gabar dumar ah oo walaashiisa ayuu matalayay wuxuuna sitay baasaboorka walaashiisi uu ugu soo duulo qaaradahan hormaray ee dunida inteeda kale haddaba waxaan eegi doonaa macluumaad xaqiiqo ah oo ku saabsan wiilkaasi iyo qaabka uu iskaga dhigayay walaashiis xilliga la qabanayay ayaa daawan doontaan haddaba si aad u heshid xogta iyo macluumaadka gaarka ah ee aan soo gudbino furo gambaleelka si aad u naqatid kuman ama aad kaga mid naqatid kumanaanka kun ee dadka ah ee nagu xiran si aad u heshid macluumaad xaqiiqo ah واتهاي وحا مغالada Ankara gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Ankara lagu qabtay maanta lagu qabtay xilli galabta waxa lagu qabtay wiil dhalinyaro ah kaas oo sida la sheegay doonayay in uu soo tahriibo dalka Ingiriiska Ibrahim Bashir waa 22 sano jir ka soo jeeda deegaanada Puntland waxayna ilma adeer ay yihiin Senator Ilhan Umar oo xildhibaanad ka tirsan Mareykanka baarlamaanka Mareykanka waxaana la sheegay Ibrahim Bashir xilliga la qabanayay inuu ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Ankara xilli garoonka uu soo galay ayaa waxa qabtay Ibrahim waxda immigrationka ee Turkiga kadib markii laga shakiyay hab socodkiisa iyo waliba qaab dhismeedka jirkiisa xilliga la qabanayay ayaa wuxuu isku soo ekeeyay walaashiis oo lagu magacaabo Zahra Bashir oo ku nool dalka Ingiriiska wuxuuna sitay walaashiis baasaboorkeeda citizenka ee Britain waxaana uu doonayay in dalka Ingiriiska ama Canada uu ku galo baasaboorkaasi Ingiriiska sida ila xogaal ay xaqiijiyeen Ibrahim Bashir ayaa gacanta lagu dhigay xilli uu qaab ama uu labis dumar ama labiska dumarka ayuu soo qaatay xilligii la qabanayay sida laga arki karo kaamirada qarsoodida ee wax duubta ay ku xiran garoonka diyaaradaha ee magaalada Ankara ee dalka Turkiga 22 sano jirkan Soomaaliga Ibrahim Bashir waxa uu marsaday in kuul wuxuu sitay dharka dumarka wuxuuna u xarakeynayay qaabka dumarka asoo xilligaasi jilayay ama matalayay walaashiis Zahra Bashir si uu kaga soo duulo garoonka diyaaradaha ee magaalada Ankara ee dalka Turkiga qayb ka mid ah ee laboorka securitykiisa ayuu si caadi ah u soo dhaafay asoo loo haysta inay xilligaasi waxa loo haystay inuu yahay qof dumar ah laakiin immigrationka dalka Turkiga markuu marayay ayaa Ibrahim Bashir waxa laga shakiyay hab socodkiisa asoona qaab dhismeedkiisa u ekaan waayay inuu yahay qof dumar ah waxaana durbadiiba gacanta ku dhigay waxda immigrationka ee dalka Turkiga waxaana la galiyay qol kaligiis taas oo keentay in durbadiiba dharka laga siibo lana arko qof rag ah oo iska soo dhigay dumar taas oo si weyn ay ula yaabeen waxda immigrationka dalka Turkiga dharbaxsan ku naqanaysa dhammaan dadka Soomaaliyeed oo si weyn laga tixgeliyo gudaha dalka Turkiga Soomaalida ayaa si weyn laga jecel yahay Turkiga mana maraan baaris gaar ah xilliyada ay marayaan garoonada diyaaradaha ee Istanbul iyo Ankara waxaana loo soo dhaweeyaa si weyn oo heer sare ah oo aan loo soo dhaweynin dadka kale dunida waxaana taas hadda caqabad ay ku naqanaysa dhacdadan maanta uu sameeyay Ibrahim Bashir oo iska dhigay walaashiis soo qaatay baasaboorka walaashiis si uu kaga duulo garoonka diyaaradaha ee magaalada Ankara Ibrahim Bashir ayaa muddo 6 bilood ah wuxuu ku sugnaa magaalada Ankara wuxuuna dejinayay qorshaha uu kaga soo bixi lahaa garoonka Ankara si uu hiigsigiisa wadamada hormaray uu u gaaro laakiin waxa la sheegay in qorshaha maanta uu fashilmay wuxuuna Ibrahim Bashir uu sheegay dadka in gabar saaxiibtiisa ah oo la yiraahdo Zahra kuna nool dalka Ingiriiska ay kaxaynayso una dacwoonayso laakiin Zahra waa Zahra Bashir oo walaashiisa ah waxaana xilligaasi dadka uu sheegay
sheegayay in Zahra gabar la yiraahdo saaxiibo ay yihiin jaceelna uu ka dhaxeeyo ay ka wadi doonto magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayna geen doonto dalka Ingiriiska laakiin sidoo dadka u sheegayay Ibrahim Bashir meesan ahayn Zahra waa Zahra Bashir oo la dhalatay Ibrahim Bashir waxaana uu qorsheynayay muddadan 6 bilood ah sidoo kaga bixi lahaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Ankara asoo iska dhigaya walaashii Zahra Bashir Zahra ayaa u soo dhiibtay baasaboorkeeda citizenka Ingiriiska si uu kaga duulo garoonka Ankara walaalkeed Ibrahim Bashir asoo xilligaasi matalaya in uu yahay Zahra Bashir dad badan ayaa isweydiiyay durbadiiba Ibrahim Bashir iyo Zahra Bashir aqli yaraantooda dalka Turkiga oo kamid ah dalalka ugu horumarsan xagga security iyo amaanka ee caalamka sida ay u keeneen in ay Ibrahim uu iska dhigo qof dumar ah dabadeedna uu iskaga soo baxo dalka Turkiga una u duulo una u aado dalalka Ingiriiska Canada iyo Mareykanka halka uu doonayo Ibrahim Bashir xilligaasi dadka Soomaaliyeed ayaa durbadiiba maskaxdooda waxa qaadi waayay in Turkiga oo la og yahay amni ahaan iyo waliba ciidan ahaan iyo qaabka dalka Turkiga uu dhisan yahay in wiilkan dhalinyarada iyo walaashiis iyo familkiisaba ay wada qorsheystaan in Ibrahim Bashir uu matalo Zahra Bashir dabadeedna si nabada uu kaga soo duulo dalka Turkiga garoonka Ankara ee caasimada dalka Turkiga dabadeedna halka uu rabay uu aado waxaana dadka isweydiinayaan cidda Ibrahim Bashir uu ka dhashay walaashii Zahra Bashir iyo familkoodaba ma maskaxiyan ay xanuunsan yihiin ama waxay ahaayeen dad caadi ah mase ka fikirin hadda dhibaatada ay u geysteen dadka Soomaaliyeed ee dalka Turkiga lagu ixtiraamka iyo sharafka iyo ciidada iyo karaamada ku dhaxlay gudaha dalka Turkiga dhibaatada iyo jabka ay u geysteen warbaahinta Turkiga oo dhan ayaa caawa waxay si weyn u falanqeynayaan dhacdada foosha xun ee galabta ka dhacday garoonka magaalada Ankara oo lagu qabtay qof Soomaali ah oo rag ah oo ilaahay nin uu ka dhigay oo iska dhigaya naag ama dumar asoo matalaya si uu u gaaro hadafkiisa ku aadan in Yurub ama Canada ama Mareykanka uu galo dad badan oo Soomaaliyeed ayaa hore waxay ula yaabanaayeen qaababka Soomaalida ay isku soo qaadaan dalalka Yurub iyo Mareykanka laakiin midda ugu yaabka badan ayaa maanta waxay noqotay in wiil Soomaaliyeed uu iska dhigo walaashiis si uu kaga soo baxo dalalka Turkiga haday meesha naqal lahayd qaaradda Afrika wax unoo qiil ayaa loo sameyn lahaa Ibrahim Bashir iyo Zahra Bashir iyo familkooda laakiin Turkiga oo ah dal horumarsan dhacdada ay ka sameeyeen ayaa dhabarjab iyo ceeb weyn waxay ku naqanaysaa dadka Soomaaliyeed Ilhaan Umar ayaa la sheegay in Ibrahim Bashir ay yihiin ilma adeer oo laba aabbe ay kala dhashay waxaana deegaan ahaan uu ka soo jeedaa Puntland wuxuu ku noolaa magaalada Gaalkacyo qaybta Puntland ee maamusho laakiin asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso waxaana wararka intaas ay sii raacinayaan in hadda xaaladdu ay tahay mid aad u cakiran waxaana Ibrahim Bashir uu mutaysan karaa 6 sano oo xarig ah taas oo ka dhigan sharciyada immigration-ka caalamiga ah qofka hadii lagu qabto isdawmarin noocan oo kala waana dambi weyn qof dumar iska dhigaya oo doonaya in qaab dumar ah soo nin rag ah inuu kaga soo baxo dalka Turkiga taas oo Turkiga dambi weyn ka waxaana dhacdooyinka noocan oo kala maxkamadaha dalka Turkiga ay ku xukumaan qofka ay ku qabtaan 6 sano xarig ah waa 20 sano jir hadda mutaysan kara in 6 sano xarig ah inuu ku qaato gudaha dalka Turkiga waxaana sidoo kale Zahra Bashir ay mutaysan kartaa ciqaab ku aadan in citizenka baasaboorka Ingiriiska laga naqdo maadaama qiyaano qaran ay sameysay ayna doonaysa in walaalkeed ay ku soo geliso gudaha dalka Ingiriiska Ilhaan Umar ayaa ku dheedo hore waxay u wajahday fadeexad aad u culus kadib markii dalka Mareykanka ay ku soo gelisay walaalkeed ku hooyo ku aaba ah inuu qabo waxaana wali hadda socda baaritaanka arintaasi ku aadan taas oo keentay in walaalkeed hadda uu aado dalka Ingiriiska waxaana walaalkeed uu ku nool yahay Ilhaan Umar oo dalka Mareykanka ay gelisay hadda magaalada London ee dalka Ingiriiska wuxuu la nool yahay Zahra Bashir oo maanta sameysay dhacdadan foosh xun walaalkeed oo da'yarta 21 sano jirana oo la yiraahdo Ibrahim Bashir maanta kiis kan gelisay ayaa la sheegay in Ilhaan Umar walaalkeed oo Mareykanka kolka hore ay ku geysay in ninkeedu uu yahay in hadda uu la nool yahay waxaana dhacdooyinka noocan oo kala dadka Soomaaliyeed si weyn ayay ula yaabaan waxaase Ibrahim Bashir aan u rajaynaynaa in nasiib kale uu helo oo laga qafiifiyo dambiga weyn ee ku dhacay waxa sidoo kale baan ka baryeynaa in dadka Soomaaliyeed dhacdadan saameyn aysan ku yeelanin maadaama dalka Turkiga si weyn laga qadariyo dadka Soomaaliyeed dhamaantiin waxay leenahay Ilaahay xifdiyo Ilaahay umuraha leedina saalo Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana umur المسلمين كلها سهلة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا قاضي إلا قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إله لما أنت أمورها لنا ينوسها لذا أمورها سهلة إله لما أنت وحنك ويدسنا قرقار كاي كلمة الله إياك نعبد وإياك نستعين إله مقعد ونكسر الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى إله وحنك ويدسنا قرقار كاي كلمة الله إله وحن كمان قلنا كوه شرطة دبعتها إلو قويدنا
inala damacsan ilaahu ku celi wixii sharca oo dhibaata oo lugooya oo inala damacsan ilaahu ku celi ilaahu dhamaanteen waxaan ku weydiisanaynaa gargaarkaaga iyo naxariistaada waxaan ilaahu rabbi raxmaan oo dhamaanteen baan ku weydiisanaynaa ilaahu awlaadii inoo barakee oo ilaahu awlaadii inoo xifdi ilaahu inta awlaaddoonkan ilaahu awlaad baaliha u saal ilaahu qarnimada Soomaaliya dib u soo celi ilaahu qarnimada Soomaaliya dib u soo celi ya Allah ilaahu qarnimada Soomaaliya dib u soo celi ilaahu inta xanuunsan xanuunka dulqaado caafimaad ugu bedel ya Allah ilaahayo inta xanuunsan xanuunka ka dulqaado caafimaad ugu bedel ilaahu dhamaanteen umuraha leenahay noo salada umuraha sala ya Allah ilaahu faraj qarqab ilaahu noofur wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallim taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun